waxaan wada joognaa annaga iyo sheekhii magaalada guddigii dugsiga SMA dugsiga marka insha Allah tacaala dad yar oo dhowr iyo 20 qoys ah aan meesha wax ku siinay marka sheekha ku soo dhaweyn insha Allah tacaala sheekha inoo faahfaahin doona insha Allah tacaala sadaqada iyo waxay tahay nooga hadli doona فليتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين marka hore naftayda iyo muslimiintaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan u rajaynayaa in uu nawaafajiyo bisha ramadaan khayraadkeeda iyo barakaadkeeda ilaahayna uu naga dhigo kuwa ka faa'iidaystay oo dembigoodii lagu dhaafay bishaan barakaysan intaa kadib waxaan joognaa iskuulka SMA sayid maxamed cabdulle xasan degmada qallaafe waxaan iskuulkaasi kala qayb qaadanaynaa maanta oon u imaanay halkan iskuulku wuxuu afurin u sameeyey waxsiin u sameeyey qoysas ka mid ah dadka degan magaalada qallaafe qoysaskaasoo u baahan intii awooddiisa ah ayuu iskuulku bixiyey marka arrintaas oo bisha ramadaan ku soo aadaysa bisha ramadaan sadaqada lala baxo way ka duwan tahay bilaha inteeda kale qofkii afuriya hal qof ah wuxuu leeyahay qofkaa sooman ee la afuriyey ajirkiisoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ka nusqaamin mahayo sida guud isagoo ilaahayna amray sadaqada oo qur-aanka in badanna lagu amray inaan wax sadaqaysanno wax la baxno oo ilaahay weliba marka uuna amrayo qur-aanka qaabka naloo amray waxaa weeye qaab amaahin ah wa aqradullaaha qardan xasanan ilaahay amaah wanaagsan amaahiya yacni waxaan sadaqada ee lala baxayaa waxay tahay waxaad u baxsanayso hadhowta ilaahay uu ku siinaya subxaanahu wa tacaala marka waa shay amaah ah oo sii horumarsanaysa wey waxaad hormarsataan oo khayra ilaahay agtiisaaad ka helaysaan marka sadaqada oo lala baxo qofka maalinka qiyaamo wuxuu harsanayaa fii dilli sadaqati sadaqada uu la baxay harkeeduu harsanayaa sadaqada haddana iyadoo lala baxayo waxay ku sii muhiimsan tahay dadka bini'aadamka ah iyo wax kastoo leh beer qoyan leh rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sadaqadu inay ku baxayso shay kasta oo beer qoyan leh wey beer leh yacni beer leh buu ku sheegay rasuulka yacni noolo ah marka waxaan bulshada ku boorinaynaa inay ka qayb qaataan qoysaska muslimiinta ah ee baahan ee bisha ramadaan sooman ee caruuraha u joogaan inay ka qayb qaataan sadaqa siintooda waxay la baxaan way helayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinayaa bedel buu siinayaa wey ilaahay khalaf iyo bedel buu siinayaa ducadana way u dhacaysaa mar kastaba waxaa soo dagaalayay xilli kasta laba malag mid wuxuu leeyahay allaahumma acdi munfiqan khalafa ilaahu qofkii wax la baxa waxaad siisaa bedel ilaahu sii ka keentana wuxuu leeyahay allaahumma acdi mumsikan talafa ilaahay qofkii asagoo wuxuu la baxa haysta aan la bixin ilaahu baaba'si yacni waa laga baabi'inaya xooluhu waxay ku kordhayaan ku barakoobayaan ku liibaanayaan carruurta ku fiicnaanayaan in sadaqada laga bixiyo oo weliba dadka baahida ee hayso lala dhowrto oo la siiyo wuxuuna qofka awoodo wey waa waxaad awoodid qofku wuxuu awoodo wey ama koombe ha awoodo ama waxa la yidhaahdo ka badan ha awoodo inuu markii dadka baahan u arko inuu wax siiyo marka waxaan ku boorinaynaa dadka wax haysta ama meelaha mu'asasaadka ah gacanta ku haya sida iskuulkan hadda aan joogno ee sayid maxamed cabdulle xasan ee degmada qallaafe aan joogno saasoo kaleento inay qoysaska ku dhiirigeliyaan qoysaskan laguma soo dooran ardada iskoolka dhigata waxaa lagu soo daartay baahida meeshay taallo waa si guud marka magaalado dhan buu matalayaa iskuulku magaalado dhan buu matalayaa marka waxaan leenahay aan ka qayb qaadano aan ku garab istaagno dadka wax la baxana ha ku soo aadiyaan si fiican sidan oo kale si ay ugu gutaan oo ugu gaarsiiyaan dadka baahan ha ku soo aadiyaan oo la soo xiriiraan maamulka iskuulka dhammaan dadka ka qayb qaatay sadaqadan inay halkaas soo gaarto waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala oga baryaynaa inuu u saaro miisaanka maalinka qiyaamana ay noqdaan kuwa harsada
sadaqada ay la baxeen harkeeda kuwa harsada oo ilaahay uu ka aqbalo sadaqa maqbuula ay noqoto baa ilaahay subxaanahu watacaala uga rajaynaynaa si gaar ah waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxa sare iskoolkani oo ah ugaas fu'aad ugaas caafi oo arrintan dhiirigelinta ah intuu awooda dhiirigeliyey awalna iskoolka hogaamihiisi guud ahaayoo aad in badan dadaal badan ku bixiyey haddana u gudbaya shacabka intiisa kale inuu wax gaarsiiyo isna waxaan leenahay intii wax ku soo aadisay inta ka qayb qaadatayba jazaakumullahu khayr miisaanka allah idiin saaro ilaahay idinka raali noqdo iskoolka aad dhigaysaan waxbarashada aad bixinaysaanna midii naajaxda oo arda fiican ka soo baxda allah ka dhigo awlaadiinana allah barakeeyo caafimaad taamna allah idin siiyo sadaqada aad la baxdayna miisaanka allah idiin saaro والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته